kaalay oo ila dhuux sheekadani cajiibka ah. Xilligii taabiciinta ayaa gabar saalixad ah waxay codsatay in loo soo raadiyo nin guursada oo saalix ah. Waxay dhahday gabadha ninkaas waa in laga helaa 3 shuruudood. Shuruudda koowaad ayaa waxay tahay waa in uu yahay nin Qur'aanka dhameeya maalin kasta ugu yaraan hal mar. Shuruudda labaad waa in uu yahay nin sanadka oo dhan sooma. Shuruudda saddexaad waa in uu yahay nin habeen kasta tukada salaad. Gabadhaani waxay ahayd mid aad u soo jiidatay rag badan oo saalixiin ah, balse ma jirin nin buuxin karay shuruudahaas. Xilligaasna beenta dadku aad ayay ugu dhoorsanaan jireen, sidaa darteed ayaa rag badani iskaga sabreen. Nasiib wanaag, maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin aad u caqli iyo cibaadaba badnaa wuxuu maqlay dalabka adag ee gabadhaas. Wuxuu ka codsaday dadkii uu sheekada ka maqlay inay tusaan halka ay ku nooshahay gabadhaasi si uu u guursado. Waxayna farta igu fiiqeen gurigii ay ku nooleed. Salaan kadib wuxuu u sheegay gabadhii in uu rabo in uu guursado maadaama uu yahay halka nin ee shuruudahaas buuxiyay. Gabadhii oo aan waxba shaki iyo walaac ka qabin ninkan ayay ka ogolaatay inay isguursadaan, laakiin raggu barasho geelow rarasho. Ninkan maba iska hubin malaha. Waxaa dhacay nikaaxii, waxaana xigay arooskii iyo aqalgalkii. Waa la yaabkii adduunkii, ninkan habeenkii wax salaad ah maba dukan ilaa cishaha maahe. Subaxiina gabadhii ayuu ku dhahay, heblo quraac noo samee, kaaga darane wax quraan ah oo uu akhriyayna ma jirin ilaa wax yar maahane. Intaas kadib gabadhii oo aad u caraysan una haysata in la qiyaamay. Soomaali waxay ku maamaadaa hobsiimo hal baa la siistaa, ayaa waxay u dacwootay qaadi muslim ah. Waxayna ugu warantay dhibka haysta ninkan beenlowga ah. Qaadigii ninkaas hal iigu yeero ayuu dhahay, wuxuuna weydiiyey sababta uu gabadhan beenta ugu sheegay. Ninkii caaqilka ahaa ayaa ku jawaabay, been ma sheego anigu. Qaadigii ayaa ka dalbaday ninkaas in uu u sharxo sida uu u guto 3 shuruudood. Ninkii ayaa ku jawaabay, shuruudda koowaad waxay tahay waxaan soomaa Ramadaanka oo dhan, waxaana ku daraa 6 maalmood ee wadaaca, waxay la mid tahay in aan soomay sanadka oo dhan. Shuruudda labaad ayaa waxay tahay salaada cishaha masaajidka ayaan kusoo tukadaa, waxayna la mid tahay anigoo caawa dhan tukanayay. Sidoo kale shuruudda saddexaad wuxuu ku jawaabay, Qur'aankan waan dhameeyaa maalin kasta, waxaan akhriyaa 3 jeer suuratul Ikhlaas. Ugu dambeyntii qaadigii oo aad u yaaban ayaa ku jawaabay, gabarey nin aad u caqli iyo cibaado badan ayaad heshay, orod oo baxa xaafadiina ku laabta.